dadku iskama warhayo dawladdu iyo xukuumadda jirtaa maanta gees labada daameed kama wada warhayso aan war hadlaadeere boor wada gooxaya aad bay ummaddu gooxaysaa waxay aad uga urursan yihiin waxaan laga sheekaynaya doorashada la galayo ee la sheegayo qolihii baarlamaanka ee aan wixii ay doonayeen xaq u lahaayeen sida iyagu sheegayaan aan waxba laga qaban iyo doorashada la galaya aad way gooxayaan dadkaas doorasho dambe oo noocaas oo galayaan ma jirto wax kasta haday dhacaan taa cid kale loo weydiinay ma jiro dawladdu waxba iskama warhayso xamar bay ka sheegaysaa farmaajo daanta hargeysan kama warhayso daan boorama inta noo jirto kama warhayso yani madaxweynayaashii hore dalka xilka qabanayay madaxweyne la doortay madaxweyne soo arkay waxa laakiin madaxweyne dalka iyo dadka iyo madaxtooyada wala baa yimid sababta ma doorasho mala I don't know lama qabanayo adeer bay la tahay taasi ima muuqato waxaana la filayaa shirki golaha dhexe xisbiga kulmiye inuu ka dhaca boorama aduu xisbigana hore aad uga mid ahayd iyo xukuumaddii horeba bal hadda in shirkaas sidaad u aragtaa meesha boorama lagu qabanayo issue ma waxa kaga duwan tahay Hargeysa lagu qabto ma arkayaan waa goobta lagu qabanayo boorama waa soo dhaweynaya mana filayo deemka inay doorasho wax ka sameynayaan halka laga sameynayo oo hoggaan cusub wax la dooranayo la fargelinayo ilama aha taa iyo wadankaba doorashooyin dambe ilama yani kama soo muuqdaano Muuse uu baa joogay madaxweynaha maanta inuu baalka joogay marka ama muddo soo korkorinayaan sida kale soo dhiganayo taala laakiin ila kulli doorasho halka ay ma filayo laakiin halka lagu qabanayay macna aanay sameynayay ma haboon magaalooyinka dalka ka mid tahay in lagu qabtaa waa wax sax sidii hatta madaxweyne biixi joogay guud ahaan sanad weeye iyo dheeraad marka muddada bal ka waran markaad rogto maxaad u malayn rajada dadka iyo dareenadooda iyo markaad la sheekaysatay iyo guud ahaan madaxweynaha maxay leeyihiin horta adeer maxamed jaamac abgaal intaas waxa uu raaciyay armaad xil diyaar way mar dooniyo sababtu waxa weeyaan waxba la kala qarqarin aan waxna ma qasan garanayee war xanuuno badan oo aan ka qaaday tii hore ayaan dawadoodii la tacaalayaa sababtu waxa weeyaan meesha kulka lagu xil wasiir baad haysaa mushaarka iyo lacagaha lagu xaq u leedahay dawladda ku qoran macal marka la isku daro xilka gurnada 1500 iyo wax noocaas lacag noqonaysa dabeedna waxa lagu dhibayaa miisaaniyad shay walba lacag walba ay ku qoran tahay shaqo gaar in lagu qabto 1500 xaaladda maanta ku jirno iyo dalku siduu yahay iyo baahida jirtay iyo dabcan wuxuu ma ka faynayso doolarna hata wixii kale ka soo galay meesha waa xaraan dawladdu markaa sanad shaqeeyay waa bar xanuunsaday dhakhtar baan tagayo dhakhtarkii wuxuu yiri kalidu xaaga jira yaabayo dabadeedna sanadkii labaadna waa bar xanuunsaday dhakhtar baan tagayo wuxuu yiri waxaad qabtaa dhiikar baad qabtaa dhiikar sanadkii saddexaad baa shaqeeyay waa xanuunsaday dhakhtarkii baan tagay dabadeedna wadnihii baaba sidiisii u shaqaynayay macnuhu waxa weeye wax aan ka badan mushaarkii wixii xaq aad u leedahay lagu qoray ee ku shaqaynaysay yaa ku soo galay waa xaaraantay war xaaraantii hore ilaahay ga cafiyo xanuunadii iyo dhibaatadii aan ka qaaday ayaan dawadoodii iminka mashquul ku ahay ma doonayo ilaahay baa ka hoos galay xil dambe oo aan loo hayn wixii aad ku shaqaynayso kugu filan oo xaq aad u yeelanayn diyaaru ma yihi wax dambe halka shilin dambe oo aanan iga soo galan meel dawlad shacabka iyo ummadda masaakiinta waxooda adeero aanu diyaaru ma yihi inta horena Allah iga cafiyo inta hore caafimaadkeedii baan iyaga adeer waxbay raaciyaan kolka cunayaan qaar baa casaadoon oo qurux badnaadoon ma garanayde laakiin anigu way ga dhantahay inta in ka badan hadii waxay dambiga soo galeen ma doo diyaar ma yihiin marka waxaan ka sheekeynayaa waa waxad ummadaas leedahay kamid ahay Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel